بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته casharkii saddexaad ee maanta xarunta xarun waxay inoo soo bandhigaysaa sheekadan waxay dhex martay shimbir hooyo iyo ilmaheedii shimbirtii yarayd ayaa hooyadeed u timi waxa ay ku tiri waxaan u tegay bini aadan dad baan u tegay deedna way soo dhaweeyeen raashin bay siiyeen deedna markaan aaminay ayay waxay igu xidheen kartoon yar bay igu xidheen qol yar bay igu xidheen oo shabakad yar ayay igu xidheen deedna koodii yaraabaa iga furay bay tiri markay waalidiintii tegeen kii yaraa waa furay deedna waan soo duulay deedna waa ka hooyadii shimbirtii waxay ku tiri gabadhaydii waxaa tahay doqon sidee baad u aamintaa bini aadanku waa cadow bay inoo yihiin sheekada macnaheedu waxay ku saabsan tahay dabinka inaynan aaminin dabinka waa la isdabaa waxaa isdabaa dagaalada waa la isku dabaa dadka cadowgiisku way isdabaan marka dadkeenu maanta ma yaqaanin cadowga iyo asxaabta ma kala yaqaanin qofkii saaxiibka u ahaana cadow buu yahay qofkii cadow u ahaana asxaab bay ka dhiganayaan waayo fikirkiibaa liita markaad tv aad ku korto markaad radio ku korto markaad social media ku korto qofkii social mediaha iska lahaa qofkii radioga iska lahaa qofkii tvga iska lahaa waxaa kasoo baxaya fikirkiisii baad qaadanaysa marka wuxuu kaaga dhigayaa asxaabtiina wuxuu kaaga dhigayaa cadow cadowgiina wuxuu kaaga dhigayaa muxuu ahay asxaab sheekada shimbirta casharka ku jira waxa weeye in aan dabinka la qaada qofka kusoo dhaweeyay ama waddanka ku yidhaha waa gacmo furamayd kusoo dhaweynay taariikhdooda la eegaa waa shalay dadkii kale ee asxaabtooda maxay ku sameeyeen 10 sano ka hor 20 sano ka hor 50 sano ka hor marka aynu isweydiino inay asxaabtii hore soo wanaajiyeen iyo inay soo xumeeyeen markaasaynu ogaanaynaa inaguna inayna xumaynayaan iyo inayna wanaajinayaan